بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناكسن إذا لهانتين بعدك أنا دقيسنا يكون نداونا يو وأمركني برنامج كني جونجار برنامج كنا جونجار وعن كدر الساقدونا اسمي دامية صدق إلا باتنكي بيشي شنات سنة كلا بدي يكون يسقالي طبعاً اللجوء قبتي دقمة جروحل قبل كجلجدود كاسو دونية إنه يسكو قرحية مناسبة ده يدينا يل المودين كارلو سنة والجماعة محمود عبد الرحمن وويل دليرة وهي كوحدة للشباب والدياريين إنه يسكو قرحية مناسبة أهل السنة والجماعة كما موسيين دليرة دي وقريوتي تقال دي هيلا قلين على الشباب محمود وحالقوسو ديارية مقالة البور هالكاس وقصو جايسين يسكو قرحية ومثل نبدا كو قبسين يسي حفلد وحانا لكينا ميل دولاد كردوسة مريبا هالكاس وكاقادين ديغانكا ولغو مقاحب علي دوباد نور kaasoo ahaa gacansiyo ugu weynaa al-shabaab ee u fududeeyay qaraxa in la soo geliyo Gurceel halkan waa goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo Maxamuud waxaana uu sharaxayaa sidoo uu ku soo galay cidda hor istaagtay wadada tan ka soo galay markaas inta la wareegto wadada magaalada xaafadan gadaasheedan soo maray asaan istaagay halkaas gabdho dhoobna gabdho agtooda istaagay عشان دم ميشينا كسو قلا نينا وحو وداهني عسكري ميشان لما اوغله قبل دخدو لما قال كره جوجي markaas kasoo wareegtay qura halkaas ku yaal agtiisaan istaagay qura agtiis markaan istaagaan abaar aan taagnaadaan kasoo wareegtay hadana waa kasoo wareegtay waxaan kasoo galay dhinacan kale kasoo wareegtay dhinaca hadana gabdhaha safnaa waa kasoo galay waa iska dhaaf waa laabtay qura agtiisaan iska fadhiistay abaaraan meesha fadhiyay xaaladii markii khudbadii wixii say u socdeen ay gabagaba ay tahay oo dadkan isla istaagi rabaan aan jaanis aan helay dhaxdaan aad iska maray saa u socday dhaxdaan saas u maray kadib dhaxdaan istaagay markaan istaagay waa joogan kala fiiriyay anoo socdo ma arkino meesha gal raba yarkad aan ku sheega wuxuu dhaynay meesha lama ogolo gobol qaadir raba iga leexan marka anagu hor u soconayna ماشي عاد ugu dambeyn aad timid halkaas ay soo ma halkaas ay taa haye halkaas markaan istaagay kadib anoo meeshii ma istaagayna waa socday anoo sideed u socdo ma aragtay aan mid kana ay dhahnay oo jooj meesha lama ogolay gobol qaadir waan dhaxsan ku sii orday haye waa ka soo wareegtay dhinac kale u wareegtay aan orday haye markaan orday badhankana aan taabtay aan meeshii markaan sii qajuu dhaha u maleena markaas meesha saas xagee taagneed markii aad badhanka taabanayso halkaan ka orday saana ordaya haye waana ku orday meeshan ku socday marka dadka aad rabtay inaad markaa isku qaraxdo xagee fadhiyeen saana u fadhiyaan horteeda u fadhiyaan haye waa gartay marka halkaan aad ka orday halkaan ay meeshan ka orday saasaan u orday ana ordaya marka badhanka markaan taabtay saan ana ordaya badhankana aan hayra saas qajuu dhahay saas leeyo محمود مرنا موسم فيلين إنه كفشل ما يقرحن وحنا ويشجعين وجد كيسوهين ولا كلمه تضباطن يلا بحور العين سيدا وامسي هاي وحنا الله شجعين مركو وجنة تجو أي قبل حور العين كسو دوين دونان هالسو نينك استو مؤمن نينك وير ونينك هور عن تسوق تودا يشجع نينك وير مؤمن ودنت لو ناقة ودن بس لو ناقة ولي موقتها نينك شهيد كانت تضباطن إلا هو مركا taas waa mooyee nin hada nin qaas ku tahay ma walaha nin kasto muumin aad dhanto iska leh horaan laakiin shahiidnimadu ka fadla dhaanta bas marka waxa socotay todobaatan labada محمود isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn waxaase lagu qanxiyeen goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn waxa jooga lagu dhahay nin shiici nin oo hadda ka hor wuxuu lagu dhahay nin dad badan oo dad qoyskoodu u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen
neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhaheen neef geel ay qaleen asay qoorta ka gooyeen qoorta markay ka gooyeen waxa la sheego ma maqashaa haa niyow geeli waan qalne ninkii iska lahaan wuxuu dhahay geelay mooyee wax kale ma raba neefkii iga qalin baan rabaa adaana karaamo leh noo istaaji asuu dhahay qul biidnillah qul biidni biidnillah tamaa biidni geeli sidii uu dhahay ninkaas kaas waayo lagu dhahay muuqaal hadalkiis ma aan maqlin laakiin sabir ahaantiisa lagu tusin bas maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in jaakada qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo Buulafalaay halkaas oo lagu siiyay tababar kooban oo la xiriira sida jaakada loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka Buqda Hiiraan halkaas oo ay xaaskiisa joogto waxaana uu dhigtay qaraxa gurigii uu deganaa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taas oo ay dagar kale oo khatar ku galiyay nolosha qoyskiisa Buqda bilan joogay gabar aan qaba meesha degneed sidaan ku joogay u joogay kadib bil markaan soonka markay bishii soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaq galab ay tahay soo wacay xagee joogtaa soo buq ma joogtaa haddaan ku imaanaa lagu dhahay gaari yar ay yimid alaabtaan soo qaatay soo bax alaabtaas diyaargal alaabtaan soo qaaday lagu dhahay sidaan gaari ku soo raacay wabigaan yimid wabigaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaariga haddana soo qaaday soo isoo wadi ma koriyo habeenkii aan ka soo casheeyay waan ka soo baxnay habeenkii aadan yabaal meel ay agteedan seexnay subaxdan salaad soo markay soo dhawaadaan ka soo dhaqaaqnay kadib waxa ceelbuuran sidii ku yimid ceelbuur markaan yimid wixii arrimaha la ii sheegay waa wadaad sidii ku wadaa ma tusin boorsay ku jirtay meel aan iska dhig ayadana boorsada iska ilaaliyaan ahna taabanaa man ogeyn waxa ku jiran inay aragteen kale anoo maqon inay aragto ma ogeyn laakiin ma ogeyn jaakada qaraxa ee uu dhagarqabe maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay 3 qaybood isla markaana lagu qarxiyo 2 nooc oo kala mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo saddex qayb ay leedahay qayb laba dhinacaan iyo hal dhabarkaan ay leedahay halaasna waxay la eg yihiin waxaan ku qiyaasaa hadda halahana marwa mid kasta halaha Soomaaliya sunteeda ay ku jirto waxa ay ku jiraan ay heed kadib ayaga bahay hadii inay ku tusaan inaad aragtan waa laga yaabaa waka taas ay marka xarkaha leedahay qaabka sida lagu masjaaka aad waayo loo gashanaa dhar ahaan loo gashanaa shar ama loo gashanaa waa si jinjeeray leedahay sana loo xiranaa hagitaan way leedahay mid waa marka ay kadibti qaj ay dhaxad telefoon laga soo wacaa meeshii marka maalintaas waxay ahayd telefoonka aan la soo wici karin telefoon mamnuuc waa la markaas ka hor lagu dhawaaqay nin wajigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno galayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wajigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan wax dad u soo aqriyo la qabto arka u maleena wuxuu isla ninka hadii la qabto sad hadda igu dhacday amal hadii la qabto inuu ku sheega mas'uuliyigaadu arka calaamad uu ka bixi darteed iska qarina Gurceel waa magaaladii ugu horeysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horeysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xiran yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd Gurceel markii ugu horeysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan Cali Dhubad Nuure Siyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku Cali Dhubad iyo ismiidaamiyaha waxa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay Xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan Ceelbuur kaas oo u soo diray Cali qadar lacag uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka Gurceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay Cali waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in isagii Xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyay in nin qarax ku xiran yahay loo soo dhigay balse adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray أنا مكاس مدلح بدل جوجو nin adeerkay soo wacay nina ku soo wacay yiri ninkaas waxaan rabaa yiri aan la shaqeeyo
kabacdi markii ninkii uu soo wacay markii uu soo wacay muddo ma qas 3 bari uu soo wacayay kabacdi waxaan go'aansaday xamar aan bilad ka yeeshay xamar soo soo wacay hadi meel badan maray wada badan marna uu soo wacay marna uu soo wacay jirin oo dambaystiisa soo ninkaas oo xiriirkaas oo aan kala yeesho qof kale oo urkaas oo xiriir aan leeyahay ma jiro waa jirtaa lacag $200 oo nin yiraahdo oo igu soo aan duqal waxaan rabaa safar aan rabaa xamar aadam deys dabreen ka aqaanay duqal waxa uu yiri wala soo wacay ana ku soo wacay sug nin yiraahdo xaajiki oo bari xaaji الله لا بقول دورنا إيجا أمري حسن الله حسن إلاي ميل أنا كنت لعبت حقوقاتي أو در إلاي دي كنت در وقات در كوي در وقول أنا لعبت وقات سلة حاجة أسي هذا نكاس لعبت بقول كنت إيسو دراي نكي سلة بقول كنت إيسو دراي قول كأدو يري كورنا عليه هيا قول كأدو يري فالصواب حي من 3 صواب حي 3 4 aan joogay habeenkiis qamiis soo galay Mayran Faarax Cabdi waa hooyada dhashay Cali Dhubad waxay joogtay goobta uu wiilkeedu keenay ismiidaamiyaha waxaana uu ninka qaraxa lagu soo xiray dadka uu rabay inuu dilo kamid ahayd hooyadaasi dhashay soo korisay Cali Dhubad waxayna hooyo Mayran hadda ku doodaysaa in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada xitaa dilo anigii dhalay oo 10 bilo urka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo 3 bilo 3 sano kala nabarka ku siday anoo meeshaas dhigo intaan oo dhalayna oo asaga ilaahay ka soo gooyeen inuu meesha dhigo waxaan oo dhan waa joog laantan wala gurgureeyo waa dhax fadhida tan midaan haye Leyla Maxamed Salaad oo xaaska u dhaxda Cali Dhubad waxay ii sheegtay in ninkeedu uu Gurceel iyo 2 maalin ka hor intaan la qaban ismiidaamiyaha uuna baxay maalinkii qarax u dhaxayay salaadii subax waqtigaas oo ahaa markii uu ismiidaamiyaha doonay wuxuu ku soo laabtay 2 habeen ayuu joogaba maalinta uu dhacayo muxaadarada la qabanayay hameenkeedii la qaban qaabinayay hameenkii horeeyay oo soo hoyday xilliyadan kale oo imaan habeenkii ma isla joogteen همينك ها غرغو كبري ها أنا سحور كريسو همين مقعد همينك عش wax dhaqdhaqaaq anigu ma aan arkin wuu seexday xilliga salaada subax la tukanayay uu buu naga soo tagay salaad subax markii la tukanayay ha salaad subax naga bax Marwa Leyla waxay sheegtay inay ka argagaxday markii ay ogaatay in ninkeedu qayb ka ahaa isku dayga weerarka fashilmay Gurceel waligay wama aan shkin hal mar oo saacadaha ilaahay kamida inuu cali al-shabaab yahay ama oo ولقي أو الشاب لشقي حتى هل ساعة ساعة إليه كم وما أنا شكني إلا عيدا إيه إمادان حتى تليه عيدا كمركو نو عيدا كأسكرت يقولون نوجو إمادان تليه وان ويدي تليه محن دعاء ونذكر هذين يسمع كوري وسؤاله وحور صو حاسك نقول عن قبل دقن بتيجي ويري هاب عن كوري نك حاسك سمت هاب ويري هاب عن كوري وحاول مشران الوقت صلى تليه وحور وحاول مشران بارس من بعض نابه ويري سس أيام قبر دار وجاها إلا يحل الضنبه وان مقلي أسرع أيق ووركس وعدادي وان مليسوا وح صورة جلنا وإلى النقوم ويس وح إنما هيراته صورة جلوا إلى النقوم ويس وركا hooyo Mayran iyo Marwa Leyla waxay si isku mid ah dawladda uga codsadeen in Cali Dhubad laga cafiyo qaradkii uu galay waxaan ka codsaa oo ag fadhiya oo gacnaha uga horsa inay soo daaya waxa tabar uma hayaan tabar ma inay soo daaya aan dawladda sharafta ka codsaa oo hor fadhiya محكمة الشرفت القدوميها محكمة حير عليها محكمة قرنك وحن قعد سنين بالآدم كويقل ضمان intaan alle iyo malaa'igta soo ku macsuumeenta inta macsuumeenta ay way qaldamaan anaga bilaadan ayaan qofka bilaadan gaf uu ka dhici kara waxaan ka codsanaynaa inay buugan xariista u baaraan Cali Dhubad noona soo daayaan oo xurriyadiisa dib ugu soo celiyaan qoyska Cali Dhubad oo aan ku booqday gurigooda Gurceel waxa ka muuqatay duruufo adag oo dhinaca nolosha tiyo oo dheereed magaxuma ay ka dhex dareemayaan bulshada Gurceel maadaama qof qoyskooda kamid ah uu hadow ahaa ismiidaamiyay doonayeen inuu Gurceel isku qarxiyo barnaamijka Gungaar waxa uu sidoo kale goobjoog ka ahaa fursad ay nisa galmudug ku siiyaan qoyska Cali Dhubad inay ku booqdaan xabsiga taasoo kamid ah xuquuqaadka asaasiga ee muwaadinka soo leeyahay
maxamuud cabdiraxmaan oo ahaa ismiidaamiyaha la qabtay waxa uu waxbarashada asaasiga uga tegay dugsiga dhexe waxaana ku biiriyay al-shabaab macalinkiisii dugsiga qur-aanka halkaasoo ah meesha laga tashkiiliyey kadib ani dugsiga iska dhiganahay saa u dhiganahay dugsigii qur-aankii aan dhameeyey mar labaadaan ku celiyey kadibna macalinkana litaxaad u ahaa kadib asna miisha jihaad iyo shabaab inoo tashkiiliyey kadib sidii aan ku raacay 2014 aan raacay bishii shanaad kadibna waan soo baxanay hiiraan aan imaaday tababarkay hiiraan ku qaatay hiiraan ka soo baxay hiiraan muddaan joognay hiiraan kadibna hiiraan dagaalkii ugu horeeyay waxay ahayd burundiyan oo gale anala kisma aan galinay taliskan joogay rigaa gale maraan weydiiyey waxa loogu sheegay maxamuud goobta lagu qabtay ee Gurceel uu doonayay inuu isku qarxiyo waxa uu sheegay in halkaasi loogu sheegay inay ka dhaxayso munaasabad lagu magacaabo maalinta shuhudada oo lagu xuso halgamayaasha Ahlusunna wal Jamaaca ee geeriyooday iyagoo la dagaalamaya argagixisada al-shabaab dhusmareeb haday ka dhicin Gurceel waayo dhusmareeb hadaysan noqon Gurceel waayo labadaas meel waayo haday dhusmareeb ay ka dhigaan dhusmareeb ay ka dhigi waayaan Gurceel ay ka dhigaan meel isku imaadaan waayo waxay ku qabtaan maalin ay dhaxaan shuhadada waayo ragii markii hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wixii ku tagay shuhadada la xusaa ay dhaxayaan markaas saas uu sheegay sidii maalinta habeenkii dambe gaariga la soo qaaday galabnimaan soo baxay halgaras markaas barti uu tilmaamay meeshaas waaye ninaan dhusmareeb ka wada meesha ku geeyna ninaan ka sii wada meesha ku geeyna adba kolba waxa lagu sheegayo waa kaas wada ismiidaamiyo markuu yimid goobta uu isku qarxin lahaa waxa ku adkaatay gelitaanka goobta waxaana dhowr mar xiriye ciidamada ammaanka goobta balse isagu waxa uu ku dooday inuu doonayo gabay inuu ka tiriyo munaasabada taasoo ahayd xeelad uu doonayay inuu ciidamada ku qiyaamo si loogu ogolaado inuu si fudud ku galo goobta ninkaan hadda xiran ay yimid kadib magaalada meel banaankeeda uu istaajiyay magaalada banaankeeda markuu istaajiyay wuxuu dhahnay meeshaan ilaa waqtiga laga gaaro meesha iska sii joog meesha sii joogay kadib xilli 3 saac ay tahay oo yimid wixii diyaar waa qalabkaas oo diyaar ku maanha soo baxo dhaay wadadana galis meesha dan tagan isma garanayno wada meesha markaan tagay meeshan saa u kala fiiriyay kadib meesha liigu sidii calaamada liigu tilmaamay ahayd dadaan ciidan ku wareejisnaa kadib meel aan rabo inaan ka gala lama ogola leeyahay waxa waa istaagay kadib mar lasli istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha marka uu soo dhawaaday aan ku soo cararay marka ku soo cararaan sida leeyahay qabtay meesha leeyahay qabtay kadib markii leeyahay qabtay waxayna dadkii wixii aan wateen Ilaahay qadarkiisa mana dhicin anna Ilaahay uu badbaadiyay dadkeen Ilaahay badbaadiyay waqtigiina meesha ku dhamaaday dhamma cabdixakiin mustaf daahir waxa uu ahaa qofkii koowaad ee sarkeen ismiidaamiye maxamuud kana xeliyay goob uu doonayay inuu xafladda ka soo galo waxaana uu kadib ismiidaamiyuu isku dayay inuu ka galo xafladda haddana qaybta haweenka balse isla cabdixakiin oo kor kala socday ayaa haddana is-hortaag ku sameeyey waxayna taasi ku sii kordhisay wiilkan yar ee sargaalka feejignaan iyo inuu shaki ka qaado ninkan كلمة أركي نكان عبارة أصلا مرمريسان أركي إيش أنكوا هاي مرك أنتوا وركسي ولا أو هلا سعودي دغداغي سا قفكم مقتدر قوم مركو يقفكم بل وحن كذا إنشانس وكسوقل وملك سعيد أنا كوجا أنا يشعب ولا وعس ولا سعيد ولا وريق ماشان ولا سوقل مركز كورين عند صاحب ولا جالس كي وماشى الاستاك قبل واحد دورني كمسكين كم حكرب تايده تكشعب كاي ماشي تشوف ورانكم كانوا يشكلنا دايان أنا أساس سوقي markaasna nin cabaar meel ku soo nasto hayo lugaa waxa uga taal ciid guduud axmed ciidkaasna uu qabo kale uu dhididay lugu ka dhididay nin meel ka soo qaco ilaa ka markaas qof magaalada joogo lama ekaan waa gartay markaas aan irtaab wala laga shikiyaan saasna u taabtay aan meeshan ka taabtay aan waxa isii boshxabad nashaati laga hoos mariyo maxay tahay isii boshxabadka aniga dib u fikir markaas iri aan dhaasaa meeshan wala laga shikiyay laabaan dhahay gaari tikniika aan dalbaday gaari tikniikada ay waxaan dhahnay aan ka shikiyaa meeshan joogay meeshan bal oo chance keelin meeshan galanda dulasho culimada ku haday saas markuu ahay aan saas wax yar u dhaqaaqnay
waxaa dhaaqay culimadii markaas uu soo booditaankiin ku boodana adu muddo 2 saac meesha isku haysanay oo soo socday waa soo nimid hadana meesha dhow baan isla nimid waa isla laabanaa adu muddo 2 saac meesha isku haysanay ka bacdi tali Cabdullaahi iyo tali Cabdinaasir oo meesha fadhiyay ayaa nagu soo baxay ما قفت ku qabateen marka 3 aan ku qabanay afar ninkii dambe oo markii hore sheekh la socod skuurtkiisa iyo laga sargaal ma shakiyaad ku qabateen mise waxaad aragteen qarax markaas ana qiilshaba qaraxa waa qarax waa dareen marka waa ku dhiirateen inaad soo qarax wada qabato waa ku dhiirab aniga oo nafteyda markaas ma xisaabin oo kula xidhay kale ninkan waa shacabka badbaadiyay in shacabka badbaadiyo gaashaanle sare Cabdullaahi Cali Raage ayaa ismidaamiyaha markii isku dayay inuu orod ku galo goobta u qabtay garbaduub isagoo caawinaya askari kale kadibna waxa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyay oo soo xayrsaday una sheegay saraakiisha in ninkan qarax ku xiran yahay maalintaas horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarijda oo shabaab kow la dirtay ahayd waxaa lagu dhigaa xushka shahaadadii ahlu sunna wal jamaa lagu dhigaa waxaan u maleynaa bishii shanaad ay ahaydaan u maleynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydaan u maleynaa bisha 17 Ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhamaatay markii dhibaatadan u dhaceysay dhibaatada Ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin arinta markay dhaceysay shaqadii meesha loo yimi way soo dhamaatay amnigu uu adkaa ninkan uu soo gali waayay soo ku sheegaba markii yaaci dambe oo kala tagi ahaa uu soo booday ninka xakan ka soo booday aniga halkaan taagnaa halkaan markaan taagnaa culimaduna markaa maba fadhin waa meesha waaba ka istaagtay ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhamaanayo dhamaata arintii marka uu isceli waayay uu soo booday halkaan taagnaa yar la yiraahdo hadda aad u maleynaa in TV-yada ka aragteen oo la yiraahdo joojoole ee ana halkaan isla taagnay uu soo booday joojoole gacanta shafakiilkiisa naga joog yiri marka joojoole gadaal u tuuray ninkan yarka sargaalka intuu sheegay anagu ma aanan arkay waa iyaga isku maqnaa marka uu gacanta iga tuuray joog uu yiri ninkan uu yiri uu ka dambeeyay moogta talin ku qarax wada uu yiri waana ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badhanka inuu taabar rabay laakiin ninkan uu gadaal uga dhigay saan gadaal soo uusan qaban uu ka dambeeyay moogta qabashadiisu uu la waayay markaas ana labadiisa gacmoodan saa u qabta ka bacdi taliyaha yimid yarkan meenada iyo u qaabilsan tali Cabdinaasir tali ku xigeenkiina waa aha waa qabanna halkaasaan qabanay waa wada qabana ninkan markaas afartanada waa qabana saas uga jaray arintii arin aad marka shaqadina guul noogu soo dhamaata tan laftirkeeda dhagar qabuhu wadana laftirkeedu guul noogu dhamaatay maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadawgii dadkii ayaka gacantooda Ilaahay ku sababay darteeda nagama faa'iideysano Ilaahay waa naga badbaadiyay hadda maalin guulahay ahayd oo cadawgii isku soo dayga sameeyana la qabtay maalin aad noogu weyn waa ay tahay maalin haddana degmadan quraceel aad ugu sii weyn waa ay ahayd ninkan Ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabtay halkaas ay ahayd ka bacdi dhagar qabaha kale asaga sheego saa lagu soo qabtay gaashaanle dhexe Cabdinaasir Manoole oo sargaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biisada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladii isku xiray qaraxa taas oo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyay waxaan sameeyay turkiiso iyo xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabatiyay ka tartiiba waxaan qabatiyay nayuutradii fiilooyinkii xariirsanay ee bomka telefoonka iyo isku dhiibayay wixitaankan awalum telefoonki iska jaray telefoonki markaan iska jaray hadana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda hadii la isku taabto qarxaasi hore ka qarxaya ilaa Britain wuxuu meenisi blaaski isku gudbinaysaa qarxaasi one by one markaan u gooyay telefoonkiina aan jaray waxaan ku wareeyay iska dhaafaa hadduu hadda isqarxi kara jasta isqarxiye ilaa qarxi dhamaa waa jireen jaakadeen xaadi uga siibna anako cabidinayna wali sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana nagu guuleeyay iyo ciidamada oo aad u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqiisa la socday waqtigiina aniga taliyihii iga sareeyay taliye Cabdullaahi Cabdi Raage iyo anigiiba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kalifay inaan isugu tagno ninkii bamka siday ayadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas imagu ku waxyeeloobay waxaan ka door bidnay inaan nafta aan leenahay anako aan midaamin
ilaahay subxaana wa tacaalaana wuu nagu guuleeyey. maxamuud oo isaga laftigiisu u socday inuu maato xasuuqo waxa uu ku doodayaa in qaraxii 14 Oktoobar ee Soobe uu saameyn ku yeesho uu ku waayay saaxiibkiis. qarax uu ka dhacay markaas Oktoobar Soomaaliya xilligaas uu dhacay wuxuu ka gabar eedada abtigay uu qaba ku dhaawacantay wiil kale oo aan isku dugsi aan ahaan jirnay madrasada isla dhigan jirnay inuu ku tagay la ii sheegay yar meeshii jooga loo soo sheegay ii sheeg Cabdinaasir ay dhahaan yarkan Arab la dhahaa leeyahay dhahay qarax magaciisa ahaan Arab nin Arab la dhahayo amniyo TMkaas gaarigaas inuu wada u maleynaa leeyahay dhahay bas yar oo shabaab asaas uu dhahay sidoo kale nin ay qaraabo ahaayeen oo ay iskala mid ahaayeen al-shabaab ayaa lagu toogtay fagaare iyadoo lagu sheegay inuu jaajuus yahay yar aan qaraabo aan ahaa jiro magaalada gabar markaas dhow gabar guursaday kadib muddo la daba joogay inuu ninkaas Mareykanka la shaqeeyay waxaas aan ku maqlaanay yarka ila dhashta ay soo wacay marka hebel waa la toogtay oo dhaaynayo waana tag yar Ayuub ay dhahan waay waa la toogtay oo dhahay waxa lagu toogay yaag baraaw meel ay dhahan oo gobolka Baay ka mid ah lagu toogtaa shabaabna la shaqeynay shabaab uu la shaqeynay markii dambe waxa lagu Mareykanka u shaqeynay hadda bishii saasa lagu idaacada laga sheegay oo dhahay yarka ila dhashta ay soo wacay idaacada laga sheegay Mareykanka la shaqeynay waa la toogtay ninkii ogaa saasa lagu toogtay ninkii hebel ahaa waa la toogtay deersaan bixin isku dhaween intaasoo dhibaato iyadoo ay ka gaartay al-shabaab ayuu maxamuud isna u soo baxay inuu ismidaamiyo oo xasuuqo maato kuwa kalena uu saameyn ku yeesho noloshooda maadaama uu ehelkooda ama asxaabtooda u socday inuu laayo waxayna taasi ka marakaxaysaa sida wiilkan yar loo maran habaabiyey isaguna hadda wuu aaminsan yahay in la soo marin habaabiyo wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo horta wixii ilaahay qadara diyaaraan u ahaanay wixii wax walba qadar waaye markaan qarxa isku soo raray taas maalintaas inaan noolaanay uma maleynaan ilaa haddana waan noolahay hadda tan haday ugu dhac qadar wixii dhacan diyaaraan u ahay laakiin waxaan idin sheegay markaan inaan yaraayo nin yar aan ahaa anoo yarna dugsi madrasada aan dhigan jiray shabaab xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada oo isku howlay baarista kiiskan ayaa codsaday dhageysiga dacwadda ka dhanka labada eedeysane 3 November waxaana laga aqbalay dhageysiga eedooda toddobaad kadib maxkamadda ayaa horgeynta kadib barlaamisay fadhigii labaad ee dhageysiga dacwadda 23 November ugu horeyn gudoonka fadhiga maxkamadda ahna gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa u jeediyay labada eedeysane dacwad loo haysto waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa inaad ka tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedeysanaha koowaad maxamuud cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftii halige iyadoo ciidamada amnigu ay ku qabteen adigoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inaad isku qarxiso xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii shanaad 2019 eedeysanaha labaad Cali Dhubad Nuur Siyaad waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta sahminta adigoo sahmiye xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii shanaad 2019 isla markaana hagayay eedeysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda labada eedeysane ayaa fursad loo siiyay inay ka jawaab celiyaan eedaha loo haysto maxamuud maxatire dambigaas lagu haysto ma gashay wuxuu yiri waa ognahay waxa ka shaqeeyo waxa maamulka ka shaqeeyo waa inta oo huwa anaga waa ognahay intaas oo sanad maamulka u shaqeeyo waa ognahay ninka saddex jaamacad ka soo wadin ee aadageyn shimbiru onshe madaxaaga ayaa ku weeyay sadaraadeen waa qalqalay meesha shimbiru shan keenay eedasan leeyahay anigu aad kalmali shabaabna maahi ma qaad ma raacsani kamidna maahi khadna raac ma waliga ma raac doono ninka shimbiru shan keenay eedasan leeyahay bis xafiiska xeer ilaalinta isla maalinkaas jeedinayay eedda gabagabada kiiskan ayaa codsaday in lagu wada xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen labada eedeysane ee maxkamadda hortaagan waa kan xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Cabdullaahi Buule Kamey
maxkamadda sharafka leh waxaan horkaynay cadaymo ku filan markhaatiyaalkii goobjooga ahaa ee qabtay eedaysanaha oo isagoo ku xiran yahay fiilooyinkii ka jaray qiraalkii eedaysanaha kan kaloo labaad oo ah ninkii hagaayay oo taleefanadii ay iska waceen iyo saacadii ay wada hadlayaan hor maxkamadda horteedana ka qirtay maxkamadda sharafka leh horta waa yani wax mucjizo ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doonaan inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsantahay qareenka u doodaya labada eedaysana ayaa maxkamadda weydiisay in loo naxariisto labada eedaysana oo mid kasta ay duruuf gaara ku riixaysay ficilkan foosha xun waa rag la wada khalday cali dhubad marka aan ka soo qaado waa nin loo hanjabay oo si khasab ah kuwa ninkaa liiday cali dhubad naftiisa ayuu ku badbaadsanayay mudana guddoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh dhammaantood waa rag la wada qalday waana rag wada dhallinyaro ah oo dalka mustaqbalka leh maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay u naxariisato ay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeyo maxkamadduna waa mahadsantahay heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn xukunka labada eedaysana kaga dhawaaqday magaalada Dhuusamareeb 24 November. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 maxamuud cabdi cabdiraxmaan 23 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay Saakow 2 cali dhubad nuura siyaad 46 jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii Shanaad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuura siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta una sahmiyay xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii Shanaad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen Guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhaceysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuura siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo Guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladii markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhaceysay Guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuura siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah 1 dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane 2 taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane 3
jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad. markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dambiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan 2 dambiile shabaab cali dhubad nuura siyaad ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabilaahi tawfiiq. guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo dhinaca farsamada iyo duubistaba ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise iyo carab cabdiweli waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanti.